baydhabo mustaqbalka soo socda waxay noqon doontaa waana wax loo baahan yahay oo muhiim ah in master plan loo suubiyo deegaan kasta oo la degayo sida horey loo sheegay degitaanka iyo casriyeynta cusub ee adduunyada maalin walbaba marxalad hor leh iyo meel bay maraysaa meel aan nidaam iyo qorsho lahayn na horumar ma gaarto sidaas awgeed qorshaha baydhabo city plan wax muhiim ah oo aada loogu baahan yahay uu ahaa mar horena ahayd in la suubiyo maamulka iyo hay-adaha ka shaqeeyana waa ku mahadsan yihiin inay maanta soo diyaariyeen baydhabo dadka hadda inta fadhiyo nimbo maalin buu imaaday ku soo gaaray nin kasta maalinkuu yimid siday ahayd maanta ma ah cabdullaahi xaaji oo kale 60 sano ka hor uu imaaday sida maanta ay tahay ma ahayn waxaa duur u ahaa oo magaalada baadiyaheeda ahaa lugabaxsi marka ay joogeen maantana waa townkii magaalada aniga markaan imaanayay waxaa duurkeeda ahaa jidka 30 wixii xag ka jiro duur bay ahayd magaalada wax joogay ma lahayn hal guri yaan xasuustaa oo dhagaxa ku yaalay 87 ahayd gurigaas maamadu Seynab liiraha iska lahayd jidka iyo xagga ka jiray 30 marka waa la yaabi jirnay gurigan goormaala degida duurka cidladaas ay dadkan ugu nool yihiin aan dhihi jirin maanta waxa ilaahay qadaray inuu townki noqdo mar hadda laga joogo 6 bilood waxaa inta noogu yimid wafdi uu hogaaminayay safiirka qadar ayna madax kaloo hay-adda qadar jaarata ay la socdeen waxaan soo dhagax dhignay dhul loogu talagalay magaaleynta cusub oo ay dowladda qadar ku deeqday oo ilaa 100 guri ah oo qorshihii oo dhan u dhamaystirnaa aan soo dhagax dhignay runtii markaan meesha tagnay aniga naftirkayga waa la yaabay meeshaan u soconnaan garan waay waxaan soconnay 10 kilomitir ku dhawaad gal dheeraan tagnay gal dheere 10 sano hadda ka hor baadiyaha magaalada ahaan jirtay waa loo soo safri jiray ceel doon bay 1 kilomitir u jirtaa maanta marka magaaladii waxay maraysaa 3 magaalo oo kale inay ku sii darsanto sidaas oo kale intana waxay u darsantay 10 kilomitir oo kale intana waa u socotay intana waa u socotay waqooyi iyo galbeed iyo koonfur iyo bari intaba waa u badatay waxaana loo degay si qorshe la'aan ah oo nidaam lahayn oo nin walba meeshuu soo gaaro uu iska degayay ayna hogaaminayeen dad soo barakacay ilaa qof socdo oo yimid oo soo qaxay dhibaato daruuf ay keentay nin walba meeshii bannaanaabuu ku degay sida muuqato ama dhaqanka Soomaalida ah 80% dadka Soomaaliyeed marka ay baadiyaha ka yimaadaan si kastaba ha ku yimaadeen ama xoolaha ka dhamaado ama colaad ha ku yimaadeen ama abaar ha ku yimaadeen way adag tahay noqoshadooda dadkan dhan kulligood Soomaaliyeed oo degan magaalooyinka kulli baadiyaha ka wada yimaadeen daruufaana keentay mid colaada keentay mid abaara keentay mid geeliya laga dhacay mid xoolihii waayay sidaas darteed markay yimaadaan waa adag tahay dad noqdo dadka hadda soo degay oo soo barakacay oo daruufahaas kala duwan ay keeneen way adkaan doontaa say u noqdaan 80% dib u dejin kasta haddii loo suubiyo dalka dib dhibaatooyinka ay ka soo tagaan xal loogu helo abaarta ilaahay ka qaado colaada shabaabkii uu ilaahay dhinac noo dhaafiyo way adkaan doontaa 20 noqon doonto 80 kale way joogi doonaan noloshii hore oo yaqaaneen waa isbedeshay nolol cusub ay timid marka waxay muhiim u tahay deganaanshahaas iyo deegaankaas dadkaas
si adeegyadii bulshadii ay u gaaraan oo qof kasta wuxuu u baahnaa uu u helo in loo suubiyo qorsho iyo dibudejin cusub iyo master plan inay helaan. haddaysan helin ma sii deganaan karaan. hadday deganaadaanna waxay ku deganaanayaan oo ku noolaanayaan riski. berita ka maalin haddii dab yar uu kaco ayadoo la awoodi karo in la demin karo lama demin karo, sababtoo ah meel la gelaayo meel la maraayo male, jidkii loo mari lahaa laga demin lahaa male. waa ogtihiin dhaqannada Soomaalida iyo deegaanada sida loo dego magacyaa loo bixiyaa. waa meelaha ugu riskiga badan. waa isku raran meel la yiraahdo kala jirto. isku raran la yiraahdo waa iska degaa. isku raran waxa laga wadaa nin walba meeshuu rabo degaaya, luuqluuqo yaroo la maramahan meel kale la gala male. meelaha qaarkood lama galay baa la yiraahdaa. waxaa looga jeedaa waa meel casikaayo tuuga galaayo lagama dabageli karo. waa xiran tahay meel laga gala male, amni ahaan looma geli karo. waxa dhaqanadii hore oo la soo bartay ka mid tahay. marka haddii dab uu kaco aan la demin karin, haddii tuug uu gala aan laga dabageli karin, haddii dadkaas dhibaato ay qabsato aan loo gurman karin, haddaanan biyihii la geyn karin, korontadii la geyn karin, caafimaadkii la geyn karin, waxbarashadii la geyn karin, waxa uma taraysa deganaashahooda iyo deegaankooda. marka qorshahan wuxuu muhiim u yahay dadka reer Baydhabo iyo dadka reer Koonfur Galbeed oo dhan. cid kasta oo mas'uuliyiinta dawladda iyo shacabna in loo istaago oo laga wada shaqeeyo Baydhabo afarteeda jaho inay hesho qorsho iyo istiraatiijiyo fiican oo mid walba meeshuu ku yaalana lagu ogaan karo, amnigana lagu kontrooli karo, adeegyadii bulshadana ay ku gaari karaan inay hesho muhiim waaye. degmadan aad ay ugu mahadsan tahay iyo hay'adihii kale oo ka kaalmeeyay shaqadan ay soo qabteen. dadka shacabka marka reer Baydhabo waxaa laga rabaa inay bilicdooda iyo quruxdooda ay u istaagaan oo ka shaqeeyaan. qataraha imaanayo iyo caqabadaha ku imaanayo shaqo kasta oo wanaagsan markii la qabanayo waxba ka hor imaanayo oo dhibaysaa. waxyaalahaas yararkoo ay dhibaysana waxa ka dambeeya ka fiicnaan doona in loo dulqaataa la rabaa. deegaan markii la degaay wasiirka hadaay wuxuu dhahay reebaadiyaha markay degaayaan yaa iska dego. reebaadiyaha taa markay degaayaan iskama degaan. waa la sahmiyaa meesha la degaayo nidaam loo degaa. waxaa la diyaariyaa warti, waxaa la diyaariyaa beerihii, waxaa ku wareegsan waa aragteen gareerida deyrkii weynaa oo tiinka lagu wareejiyaa. meel dugsi quraanka loogu talagalaa, meel meesha lagu shiraayo waaye. qorshay ku degaan reebaadiyaha taa iskama degaan. nin soo u socdo warta degaay ma jiro, nin soo u socdo jidkii la maraayay oo laga soo galay gareerida degaay ma jiro. qorshay u degan yihiin. waxaan qorshe lahayn iyo deegaan aan qorshe lahayn ma jiro. marka deegaan kasta oo la degayo waa inuu qorshe leeyahay ay ka mid tahay. qorshahaasaana loo baahan yahay inaan kulliga annaga ka wada shaqeyno si aan u helno ilmaha annaga ay u helaan deegaan qurux badan, magaalo qurux badan oo wax walbo adeegyadii bulshada ah gaari karo. qof kasta u baahdana uu tagi karo waqtiga loo baahdo. gurmad kastana lagu suuban karo loo gurman karo. si aan u helno waa inaan u wada istaagnaa dhismahaas. meelaha ugu daran markii laga shaqeeyo qofka bini'aadanka markii hawshan la qabanayo dhib uu arkaya, laakiin markii shaqadii la qabto yuu arkaya faa'iidada ay leedahay. midda guud iyo midda gaar ahaaneed markaas uu arkaya. marka aan u wada diyaar garowno waxaan kaloo codsanaynaa hay'adaha hadda ka shaqeynhayo oo ugu horeysa UN Habitat aad iyo aad ay u mahadsan yihiin iyo cid kastoo soo diyaarisay. waxaa kaloo codsanaynaa hay'adaha iyo doonarka inay gacan weyn ka geystaan aynan nagu garab istaagaan dhismaha iyo master planka Baydhabo ay nagala shaqeeyaan. sidaasoo kale dadka shacabka reer Baydhabana inay u istaagaan bilicda iyo quruxda, aynan u huraan meelaha shalay degtay oo dhulka Ilaahay baa iskale, kasoo dawlad baa mas'uul ka ah. adiga inaa ku noolaataa la rabaa. ku noolaashahaas kadib meel shalay aad degtay inaa ka lex jeclaysatid wax dan guud ah oo aad tiraahdo anigaa la ii jeedaa iyo reer hebelaa loo jeedaa iyo hebelaa loo jeedaa, inaysan imaanin meeshii loo garto inay iskool noqoto,
la baneeyo dhulka waaweyn yahay dawladda ay meel kale ku dejiso iskoolkii uu noqdo meeshii jid loogu talagalay inay jid noqoto meeshii isbitaal loogu talagalay inay isbitaal noqoto cid kasta marka xanuunkaas ay nasiibkiisa noqoto ay taabato wuu ka faa'iidi doonaa berri wuxuu heli doonaa booskiisa ha u yaraadee isbitaal uu tago iyo iskool uu tago iyo biyo uu helo iyo adeegyadii bulshada oo dhan loo dhammaystiro oo la soo gaarsiiyo uu heli doonaa aad iyo aad u mahadsantihiin cid kasta oo gacan ka geysatay oo mahad celinayna si gaar ah maamulka degmada Baydhabo oo waqti iyo juhdi geliyay ugu horeeyay gudoomiyaha degmada aad u mahadsan yahay hay'adaha naga kaalmeeyeen waa mahadsan yihiin martidan iyo mas'uuliyiintii wasiiradii ka soo qayb galay shaqada qaybta ka ahaan aad u mahadsan yihiin السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونوضح فرن يحيي